بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هوري ayeen u sii socon doonaa videogan dabcan waxaan dareemayaa videogan inuu yahay videoga ugu muhiimsan ilaa haddeertan aan playlistigan qaybtan design-ka aan ku soo darayaan okay videogan mowduuc badan baan ku taaban doonaa waxaan ku baran doonaa mowduuc inagu cusub insha Allah sidoo kale tan waxa uu revision u noqon doonaa dhammaan shaqooyinka hore aynu u soo aragnay sidoo kale tan waxa uu sawir wanaagsan ka siinayaa mustaqbalka shaqooyinka aan qaban doono hadafka aynu ka leenahay iyo waa maxay levelka aan rabno inaan isla gaarno okay marka videogan waxaan doonayaa inaad si deeply aad u daawato aad fahanto insha Allah wax kasta su'aalaad ka qabteen insha Allah inaad ila soo wadaagto aad ilaahay marka insha Allah maanta mowduuca inagu cusub aynu arki doono waxa weeye wax la yiraahdo DXF file mowduucaas ayaa maanta inagu cusub aynu isla arki doonaa marka intaan mowduuca DXF file-ka aan u gudbin waxaan rabaa inaan horta دور دقيقة أن تبقى قلنا مشروعيني وحين قبصنا إلا هدرتان إيا وامح ميشين يسلقاهنا أوكي دا ديبو حاسوسنا وحين هيسني architect drawing وامح drawing وينوس السمية engineer كيني architector كاها أوكي وحين سميني architect drawing كأيانو قادرني وحا أينو كوب سميني وامحي structural system أيانو وبدلنا أيانو صح structural system ومحان كوضا وامحي إنان كو سمية complete statical system inaan ku sameeyo complete statical system okay marka statical system kan dabcan mowduuc badan baan kaga hadlay videos badan waa maxay qayb waxa jirtay u khaas ah beamska qayb waxa jirtay u khaas ah waa maxay columnska qayb waxa jirtay u khaas ah slabska okay yani haday noqoto waa maxay flat slab ama haday noqoto solid slab mid kasta qaabkan u dooranayo iyo waa maxay sababta aan waa maxay system noocaas aan u doortay dhammaan waxaan kaga hadlay videoiska dhowrkii videogan ka horeeyay casharkan ka horeeyay aan kaga hadalnay statical systemka waxaan rajaynayaa insha Allah hadii aad hore u daawan ama wali huma kaaga jirin dib ugu noqoto okay marka mashruucayni hadaan dib ugu noqono mashruucayni muxuu ka koobnaa mashruucayni waxa uu ka koobnaa basement sidoo kale waxa uu ka koobnaa waa maxay waxaanu haysanay aynu ground floor maxaan kala haysanay waxaynu haysanay typical floor aan ka wada waa maxay inay aan haystay first plus second yani doorkeyga koobaad iyo doorkeyga labaad okay sidoo kale tana waa maxay in aan haystay roof okay marka waxa laga yaabaa inaad marka statical systemka marka aad diyaarsanayso inaad tirsato aad tiraahdo mesela waxaan haystaa aan basement ground floor labo typical laba floor way yani waa 3 iyo 4 roofkeyga waa maxay waa 5 yani inaad tiraahdo ha engineer waa maxay last waa maxay waxaan haystaa aan 5 statical system qaab noocaas inaad waa maxay xisaabisa laga yaabaa laakiinse waxaan ku dhahayaa may stop jooji halkaas okay laana waxa jira horta inaad fahanto halkan waxa ku yaala waxa weeye laba slab oo waa maxay same aan ku waa maxay waxba aan ku kala duwanayn okay marka labadanba waa maxay hal statical system baan ka soo qaadanayaa laba statical system ka soo qaadan mayaan okay marka waxaan rabaa aan si aad waa maxay si deeply aad u si fahanto aad haddaan halkan qaab aan u sawiro مثلا mashruuciga isagoo space ah qaab space haddaan saan kale ugu sawiro si aad waa maxay qofkii aan fahmin waxaan halkan pointiga rabay inaan gaaro waa maxay tan uga fahmo okay yani مثلا columns baan saan u haystaa aan okay qaab saas oo kale taa okay aan dhaho مثلا doorkan koobaad okay doorkan koobaad waa maxay waxaan haystaa aan qaybtan basement qaybtan waxa weeye waa ground floor-keygii qaybtan waa maxay waa first-geygii qaybtan waa maxay waa second-geygii okay sidoo kale yani ilaawin waxa halkan ii yaala waa maxay roof marka roofka dabcan waa ka duwan yahay waa maxay waa ka duwan yahay flats waxa weeye slabska floorada kaleeto lan space waa maxaan dhameystiran ma dhisay waxa laga yaabaa inaan مثلا 25% area-deeda aan waa maxay roofkeyga aan samaystaan okay marka qaab noocan kale taan rabaa inaan waa maxay mashruuciga qaab noocan kale igu yaalo waxaan rabaa marka inaan slab kasta oo waa maxay halkan ii yaala slab kasta oo halkan ii yaalo waxaan doonayaa in aan design gareeyo ama statical system inaan u sameeyaan marka waxa laga yaabaa
inaad marka ugu horeysa aad ku dawaqdo laakiin hadaad stepskan hadda aan qaadanayo hadii aad ila raacdo waxaad fahmaysaa waa maxay qaabka aan statistical systemka aynu u sameysanaynay inta islaab aynu waa maxay sameysanayno si waa maxay aynu hodhowti barnaamijka ETABS aan u geyno okay marka ugu horeysa maxay sameynaysaa marka ugu horeysa halkan goorta taagantahay basementiga marka taagantahay kor hadaad fiiriso marka structural engineerka waxa uu eegaa waa maxay kor soo waxa garata saqafku eegaa okay marka saqafka eegto maxaa slabka ugu horeeya ka soo horbaxaya ama saqafka ugu horeeya ka soo horbaxaya waa maxay waa saqafka uu leeyahay basementiga okay sidoo kale tan waa saqafka يعني lugaha qofka yani مثلا ground floor ka uu joogo meesha lugaha ku haya waa maxay waa saqafka basementiga sax marka ugu horeysa waxaad arkaysaa saqafkan basementiga okay waxaan ula baxaynaa marka saqafkaas basement okay waxa halka ku soo raaca waa maxay laba saqaf soo waxa garata oo isku mid ah laba saqaf isku mid ah maxaan ka wadaa waa maxay qaybtan area-datan soo waxa garatay ma area-datan waa laba area oo waa maxay isku qaab loo jarjaray isku qaab waxa weeye loading-kooda loogu sameynayo mustaqbalka lana waxa weeye qaybtan labada qaybood aan ka hadlaya waa maxay waa labadan qaybood halkan yaala dabcan sax soo labadan qaybood ba waa maxay waxay yihiin residential sax labadan ba waa maxay waa residential okay marka labadan ba waa maxay waa same loading yani saqafka kan iyo saqafkan kaleeto waa same loading laano kana maxaa ka sareeya residential ba ka sareeya kana waa maxay residential okay marka saqafka kan maxaa ka residential ka xagee uu dul saaran yahay wuxuu saaran yahay saqafka kan kana xagee uu dul saaran yahay wuxuu saaran yahay saqafka kan soo waxa dareemaysaa waa maxay in saqafka kan iyo saqafka kan ay waa maxay same loading same unit division ay yihiin soo waxa garatay ma loading marka uu dhigto ama load ama culayska yani waxaan dareemayaa in terminology kugu cusub hadda aan akhrinayo aan sheegayaa marka laakiin gadaal baad ka fahmi doontaa okay marka haddii marka loading aan sameynayo kale waa maxay labadan saqafa waa maxay same loading baan u sameynay laano labaduba waa maxay waxa dul saaran ama ku xamilan waa maxay waa laba residential okay marka labadan saqafa waa maxay hal mid baan ka soo qaadanayaa labadan saqafa hal mid yani waxaan ka soo qaadanayaa hal statistical system baan ka soo qaadanayaa okay waxaan leeyahay marka mesela typical okay plus sidoo kale waxa ku soo haray waa maxay saqafkan ugu dambeeya saqafkan waa maxay waa saqaf ka duwan saqafyada kaleeto okay colorka jaalo waaye laakiin hadaan mesela color kale aan ku bedelo saqafkan okay color red arki kartid colorkan saqafkan ugu dambeeya saqafkan uu ka duwan yahay saqafkan ka hooseeya okay laano saqafkan maxaa dul saaran saqafkan waxa dul saaran roofka dul saaran soo waxa garatay ma yani roof waa dul saaran yani waa maxay waa different loading يعني waa maxay culayska kan waa culays ka duwan culaysyada hore saaran okay waxa laga yaabaa sidoo kale halkaan oo kale in ay yeelan mesela inaan saqafka korkiisa aan saarto mesela soo waxa garatay ma water tanks soo waxa garatay ma waa culays ka duwan culaysyada hore aan u arkin okay waa culays kale asagana soo waxa garatay ma marka saqafka kan waa in asagana si gaar ah u dhisan gareeyo laano loadka dul saaran korkiisa ah laano loadka dushiisa ah waa maxay waa uu ka duwan yahay kuwi kaleeto laana kan waa maxay waxa dul saarnaa waa maxay residential kan kaleeto maxaa dul saarnaa waa residential soo waxa garatay apartment iyo waa maxay deegaana oo la degan yahay soo waxa garatay ma kan maxaa dul saarnaa residential baan dhihi karaa soo waxa garatay ma laakiin kan gaar baan u dhisan gareynaya asaga basement baan u bixiyaan soo waxa garatay sababtan sa ugu bixiyana cabar kadib aan idin sheegaya okay marka slabka saddexaad aan waa maxay aan statistical system aan u sameysanayo waa maxay waxaan u bixinayaa mesela last floor kayga soo wax garatay ma kaasna waa maxay weynaan design gareeyaan okay sidoo kale waxaad arkaysaa halkan in aad haysato roofkan mesela yani خلاص yani isaga wax laga yaabo in afar amuud waa maxay roofkan waxa kaliya uu adeegsanaya waa maxay mesela hadii halkan ay jaranjaro ii taalo soo wax garatay in jaranjarada ay roof u noqoto yani halkan mesela hadii space kan oo kale uu yahay space ki aan jaranjarada aan u isticmaalay marka qaybta ka sareysa waxaan u baahanahay roof baan u baahanahay jaranjarada laana hadii meeshan waa maxay waa meel open ah oo furan soo wax gartan jaranjarada waa furanta soo wax gartan marka hadii hadu dhigto mesela roob ku yimaado qorax oo kale soo wax gartan dhamaan waxa dareemaysaa waa maxay in roobkii wixii dhan ay straight waa maxay jaranjaradii ama gaabkii open ka ahaa dhismaha waa maxay ka soo galay marka waxaan u baahanahay roof waa maxay saas waa maxay u cover galaya okay marka asaga خلاص عندما design garayso flat slab baa laga dhigaa afar amuud iyo waa maxay oo minimum oo waxa la yiraahdo waa maxay postis waxa la yiraahdo mesela postis yani waa maxay inaan adeegsado postis waxa la yiraahdo amuud yani waa maxay column maahan waa column yar waa maxay aan dhaho mesela 25 dimensions ku yahay soo waxa garatay maaha birta galeysana mesela aan dhaho waa maxay
waa 4016 okay bas yani afar birood baan geliyaan mid kastana ay tahay 16 dimensionkeeda ay tahay okay marka diameterkeeda ay tahay waa maxay 16 milli okay marka maxaa halkan ka fahantay waxaad ka fahantay aad in aan samaysanayo waa maxay basement iyo waa maxay typical iyo last floor yani waxaan u baahanayaa waa maxay saddex statical soo wax garatay ma statical systems yani shantii hore marka hore halkan waxa laga yaabaa in aad marka hore maxaynu xisaabsanaynaa aynu halka markaynu fiirinay maxaa laga yaabaa markaan dib aan u xasuusano waxa laga yaabaa markaan ku dhahay waa maxay statical system ii xisaabi inaad ii xisaabiso waa maxay shan Allahu musta'an inaad ii xisaabiso shan statical system yani shan statical system aad tiraahdo waa maxay number 1 waa kana labo waa kana saddex waa kana afar waa kana afar inaad midalan laga yaabaa inaad kan shanaad aad xisaabsatay aad laakiin ad waa maxay ugu dambeyntii waa maxay inaan sameysanayo waa maxay saddex statical system bas saano kale taa okay marka mawduucaas waa mawduuc muhiim ah inaad waa maxay aad u fahantana waan rajeynaya insha Allah okay marka su'aal baa laga yaabaa quick question inaad weydiiso waa maxay khalaas engineer saad ii sheegtay Allahu musta'an inaad tiraahdo aad su'aal saano kale taa inaad tiraahdo engineer waxaad ii sheegtay waa maxay in floor kan groundiga ah soo wax garatay ma inuu ka duwan yahay labadii hore labadii ka sareysay yani labadanna waa maxay tigta saarayo in waa maxay ay isku mid yihiin laakiin kan uu ka duwan yahay waa ka duwan yahay waayo kan waa maxay ma lahan wax cantilever labadan wax laga yaabaa in cantilever leeyihiin soo wax garatay labadan cantilever leeyihiin soo ama truss banaanka uga soo baxsan laakiin ground floor kayga dhulka intee uu ka kacsanaa hadda dib u xasuusatay aad mashruuceen wax laga yaabaa inuu mitir iyo 90 hadda aanu intaan khaldaneen mitir iyo 90 mitir mitir iyo 90 mitir haddii aan aan sameeyo ka waran aan u sameeyo cantilever soo wax garatay ma mitir iyo 90 mitir oo cantilever saan kale taan ugu sameeyaa hoostiisa maraya marka khalaas yani space dhan baad ku ciyaartaa okay marka cantilever ma lahan okay yani waxaan ka hadlayaa waa maxay hadaan dib sa ugu soo dago mashruuciga hadduu saan kale ahaa مشروعي هادو سانو كليتا uu ahaa okay مثلا oo halkaan oo kaleeta مثلا waa maxay qol ii ahaa qolkaan oo kaleeta haduu مثلا saan oo kaleeta waa maxay u lahaa cantilever soo wax garatay ma halkaan oo kaleeta waa maxay inay مثلا yahay Allahu musta'an meeshii wajhadi guriga soo wax garatay inay yahay marka cantilever kaleeta inuu saa iigu yaalo oo kaleeta soo wax garatay ma halkaan oo kaleeta waxa la yahay cantilever yar usaan iigu yaalay soo wax garatay dhammaan cantileverada tan xagee bay ka muuqanayaan ay dhammaan cantileverada tan xagee ka muuqanayaan waxa ay ka muuqanayaan waa maxay typical ka bas typical ka bas baan ka muujinayaan laakiin hodhowti markii aan waa maxay aan ground floor ka aan sameysanayo waa maxay waxaan leeyahay waa maxay ayo mashruuci waa maxay waa sidaasan wax cantilever ma lahan okay wax cantilever ma lahan wasaano kaleeto okay cantileverada dhan waa maxay waa ka sarayaan meesha okay marka waa waxa dareemaysaa waa maxay same area ma laakiin area waxa raacsan cantileverkii soo waxa garatay ama trusting ama balkoonkii Soomaaliya hadba si waa maxay balkoonkii guriga soo waxa garatay marka kan balkoon uu leeyahay soo waxa garatay doorka labaad wixii ka dambeeya balkoonay leeyahay laakiin doorka koobaad dhulka ka kacsan soo waxa garatay waxa dareemaysaa aad inuu soo wax balkoon ah uusan lahayn marka qaabkaas waa maxay waxa dareemaysaa in same area aysan lahayn marka kan waa maxay uu ka duwanaanaya wuxuu noqonayaa statical system ka duwan staticalada kale marka ugu dambeyntii gowlaadku waa maxay maxaan haystaan saddex statical system basement iyo waa maxay typical iyo waxaan haystaan last floor okay